maandooriyaha iyo dhalinyarta haddaan ka hadlo maandooriyaha badan ku soo badanaya xashishada waxaa isticmaalayna dhalinyaro yaryar oo runtii xataa inaynan qaan gaadhin oo sharcigu suuna qabanayninba yaa isticmaalaya marka warar badan boolisku way soo qabtaan sidii loo dabar jari lahaa iyo dad badan ama ku xukunay ama aan ku haynin haddaba way jiraan sida looga hortegi karana waa in waalidiinta iyo macallimiinta ciyaalka waxbaraya in akhlaaqdooda la hagaajiyo ciidankuna uu isaguna siduu ku dabargoyn lahaa iyo dadka keenaya iyo meesha ka imanayso aanu dadaal dheer ugu geli lahayn sidaan u dabar jari lahayn sharcigan aan ugu waafajin lahayn marka waxaan waalidiinta iyo cid walba oo waxbarashada ay khuseysaan ugu baaqaya in tarbiyadda carruurta iyo laga warhayo oo maandooriyaha iyo xabagta iyo xashada iyo waxay isticmaalayaan dhibaatooyinka ugu badan ee caasimadda iyaga ka dhaca waa wax un maandooriya keenayo oo ciyaal yarar baa xashada isticmaalaya midda kale waa tuugada bajaaj baa lagu dhacayaa dadka habeenkii mobile baa laga dafayaa bajaajyo badan oo eegaan hayna ayaa jira oo taarikada laga furay habeenkii dad baa in lagu dhaca ayaa looti marka inay bajaaj taas habeenkii socotana laga taxadaro oo cid walaaba inay ka taxadarto bulshada caasimadda waayo cid wadata tuug baa wadata oo adeegsata waanu qabanay ilaa 20 iyo dhowr bajaaj oo wax lagu dhacay ciidanka boolisku soo qabteen mikartogo ay sharciga keeneen marka hawlahaas waxyaalaha u muhiimsan ee dhaca waa waxyaalaha waxa keenaya tuugnimadaasi waxaana waa maandooriyaha marka nabadgelyo darrada waxa kale oo u baaqaya dadka nin baa wax dili dilal badan baa dhaca nin baa wax dili heerkoodii buu dhexgeli waa la qarinayaa gacan ku dhigli isagu inuu sharciga iskeenay ahayd ayaa heerkoodii dhex jooga si heerkiina qarinayaan ka boolisaan iyo kulli hay'ad amni ahaan annagu gacan ku dhigla dambe inuusan joogin waan diiwaan gelinay waanu haynaa nin walbana in la qabto ayaa noo qorshaysan marka inay bulshadana waxaan ugu baaqayaa inay ninkii nin dila gacan ku dhiglaha in sharciga lagu soo dhoweeyo ciidamadana ay kala qayb qaataan sidii sharciga loo marin lahaa marka dilka ku yaraan kara ruux haddii sharciga la marin laakiin nebelo 5 soo dilay maanta intuu halihii ka yahay heerkoodii dhex fadhiyo wax qabsoomaya ma jiro dadkana kuma qancayo ciddii ay dilku gaadhay iyaguna xun bay dili marka ciddii dembi gasha waa inuu shakhsiga dembiga ku koobnaado shakhsigina sharciga la hor keeno dhibaatooyinka jiray ka mid tahay hadda waayahan dambe jiray inuu ku dhex dhuunto ruux intuu dembi galo uu aayar joogo oo heerkoodii dhex joogo isagoo dembigay marka waxa uma dulqaadan doono kaayada amni ahaan annaguna kulli waxbaan iskaga ognahay sharcigaanuna marin doonaa haddii aan leedno marka haddana sidii aan u dabar jari lahayn maadaama hadda qorshe inaan dabar goyno maandooriyaha meesha uu ka soo galayo meel walbana aan xididada u siibno bulshadana iyo waalidiinta iyo cid walbana waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan waxaa kale oo jira dad ciidanka dariskiisa habeenkii magaalooyinka luuqa madowinta istaagaan ciidan dadkay sooga dhigo baaranaya dadkaana iyadana in la ogaado oo laga taxadaro oo booliska iyo bulshadu intay isku xidhnaadaan dariisyo badan oo la badbedelay baa jira dariisadii saas ahay dad badan buu si badan buu u galay magaalada oo waxay dad habeenkii xidho luuqa istaago dadka ciidan intay sooga dhigaan baaranaya waa kiisaska aan aragnay toddobaadyadii u dambeysay waxyaalaha aan diiwaan gelin aragnay dad aan qabanno noocaas oo inaga sharci ku dhaweyn way jiraan cid kale oo haddii aan inaan qabanay aan rajaynayn way jiraan laakiin inay bulshadu ay ka feejignaadaan waxyaalaha aan sheegayno dhan laga taxadaro sida bajaajta lagu dhacayo tuugadan luuqa istaagaysa dadka intay dariiska ciidanka ka xidhaan in la soo sheego oo la qabto waxyaalahaas oo dhan waa waxyaalaha aan rabno inay bulshadu ay ka taxadarto kana feejignaato boolisku markuu qabtana qofka eedaysanaha wuxuu ku dhaweeyaa kolka ugu horeysa isaga baadha kiisku markuu dhamaystirmana wuxuu u gudbiyaa xeer ilaalinta waxay gudbisaa maxkamaduna go'aan bay siisaa marka maxkamaddu go'aankay siisaa iyada u madax bannaan laakiin habeen walba de waxa la soo qabtaa dad fara badan oo dambiye kala duwan galay sida bajaajyadoo kale way abaabulan yihiin oo intii dhalinyaro soo raacdo ayaa dadka lagu qabsadaa mobilada kadib hadduu qofku mobilka sii dayn waayo xataa dhibaata loo geystaa taana waxa soo afjari kara waxa weeyaan waa bulshada weeyaan waa dhalinyarada waa hooyada waa aabbaha waa culimada ayaa soo afjari kara waxa laga yaabaa dad fara badan oo meel jooga inuu meel dambi ka dhaco oo cid waliba ay iska aamusto laakiin waxay samayn karaan inay xataa sawir ka qaadaan ayay samayn karaan oo dadna isla markaaba booliska ay u soo gudbiyaan kulley bulshada waxaan u shaacin doonaa telefoonada ay kala soo xiriiri doonaan bulshadu ay kala soo xiriiri doonaan booliska
hadday wax dhacdooyin ay la kulmaan isla markaaba ay la soo hadlaan booliskuna si degdeg ah inuu meesha u gaadho boolisku markuu shaqaynayo oo bulshadiisa u adeegayo waxa laga yaabaa khaladaad inay ka yimaadaan ama nooc aan anshaxa ka baxsan ay ku arkaan bulshada lafteeda taa lafteeda bulshada inay ka amstama waa inay soo sheegto telefoonnadan aan qaybin doono iyo lambaradan aan qaybin doono inay kala soo hadlaan oo yidhaahdaan goob hebel cidda ku qoran esaas iyo esaasa wax anshaxa ka baxsan ayaan ku aragnay si isla markaaba mas-uulka ugu dhoweeya meesha xukumaa uu u gaadho marka taas kolley dhalinyarada iyo bulshada oo guud ahaan ayaanu sheegayaa